Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadahena qiimaha badan. Halkan waa channelkan Hoggaan Media oo had iyo jeer aad kala socotaan barnaamijka falanqaynta caalamka. Tabinteena fiidnimo waxaan ku eegi doonaa haddii Rabbi uu qadaro maxay ahaayeen arrimaha ay isku khilaafeen Mareykanka iyo Iiraan oo ku saabsan kormeerka nukliyeerka iyo hantida la xiray ee ku jirta heshiiska loogu soo afjarayo dagaalka. Muxuuse ka sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in Iiraan ay ogolaatay in xarumaheeda nukliyeerka lagu sameeyo kormeero socon doona weligeedba. Ma dhaba in aan wax tanaasul noocaas ah laga gaarin wadahadallada labada dhinac. Muxuu ahaa khilaafkan shakiga geliyay mustaqbalka heshiiska jilicsan ee nabdeed ee labada dal dhawaan ay gaareen. Qodobkaas oo faahfaahsan waxaan ku eegi doonaa intaan ku guda jirno tabinteena. Sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka falanqaynta caalamka aqalka sare ee sanadka Mareykanka oo ansixiyay qaraar ka dhan ah dagaalka Iiraan dhabarjabna ku noqday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Muxuu dhab ahaan ka dhigan yahay in aqalka sare Mareykanka ay meelmariyaan qaraar uu ku baaqayo in madaxweyne Donald Trump uu joojiyo ololihiisa militariga ka dhanka ah Iiraan ama uu marka hore fasax ka helo Kongareeska. Muxuuse ka dhigan yahay qaraarkan ay meelmariyeen aqalka sanadka ee Mareykanka ee uu meelmariyay? Ma dhaba in Trump uu keenay jahwareer iyo khasaare? Sidoo kale maxay ahaayeen walaaca laga qabo wadahadallada nabadda iyo jamhuuriyiin ka digtay saameynta qaraarkan? Sidoo kale intaan ku guda jirno barnaamijka falanqaynta caalamka waxaan ku soo qaadan doonaa Iiraan oo mar kale si adag u xaqiijisay taageerada aan leexleexadka lahayn ee dalkiisu u hayo shacabka Falastiiniyiinta. Maxay Teheraan ka tiri sii wadida garab istaaga iyo qadiyadda Falastiin ilaa iyo laga xaqiijiyo dhammaan xuquuqdooda sharciyeysan? Guud ahaan arrimahaas oo idil ayaan mid u dul istaagi doonaa daqiiqadaha soo socda haddii Rabbi uu qadaro. Balse daawade intaan u guda galin dhammaan umuurahaas oo idil waxaan kaa codsanayaa haddii uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan like noo saar, la wadaag asxaabtaada. Haddii aadan ka mid ahayn bahdeena fadlan noogu soo biir oo rukumo channelkeena Hoggaan Media, subscribe noo dheh, gambalaalkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga oo la wadaag asxaabtaada. Taariikhdu waa 24 Juun sanada 2026. Dabcan barnaamijkan waxaa idin soo gaarsiinaya anigoo Hashim Aadam ah. Ku soo dhawow mar kale iyo barnaamijka falanqaynta caalamka. Waayahay waxaan ku bilaabaynaa Mareykanka iyo Iiraan oo isku khilaafsan kormeerka nukliyeerka iyo hantida la xiray ee ay ku jirta heshiiska lagu soo afjaray dagaalkan. Haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Talaadadii sheegay in Iiraan ay ogolaatay in xarumaheeda nukliyeerka lagu sameeyo kormeero socon doono weligeedba. Ha yeeshee Teheraan ayaa arrinkaasi si cad u beenisay, iyadoona ay sheegtay in aan wax tanaasul noocaas ah laga gaarin wadahadallada labada dhinac. Khilaafkan ayaa shaki geliyay baa la leeyahay mustaqbalka heshiiska jilicsan ee nabadeed ee labada dal dhawaan ay gaareen. Haddaba labadan dal oo Isniintii ku soo gabagabeeyay wareeggii ugu horreeyay ee wadahadalladooda ka dhacay Switzerland ayaa sidoo kale bixiyay baa la leeyahay warar iskhilaafsan oo ku saabsan arrimo muhiim ah sida dhiirigelinta dhaqaale ee loo fidinayo Iiraan, cidda maamuli doonto maranbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz, iyo dagaalka Israa'iil ay barbar socodka ugu wado Lubnaan. Iyo dhammaan qodobadan oo idil ayaa qayb ka ah baa la leeyahay heshiiskii qaab dhismeedka ahaa ee toddobaadkii hore la saxiixay si loo soo afjaro dagaalkan. Si kastaba ahaatee, Trump ayaa sheegay in wadahadalladu si wanaagsan u socdaan, isagoona ka hadlay isu soo bax ka dhacay gobolka Pennsylvania. Ayuu yiri, si fiican ayaan isu fahmaynaa, arrimuhuna si wanaagsan ayay u socdaan, ayuu hadalka Trump ku sheegay. Dhanka kale, Mareykanka wuxuu fududeeyay xayiraadihii safarka ee lagu soo rogay xulka kubadda cagta Iiraan ee ka qaybgalaya koobka adduunka. Waxaana loo ogolaaday baa la leeyahay in ay ka safraan magaalada Tijuana ee dalka Mexico una gudbaan Seattle 2 maalmood ka hor kulanka xiga, halkii markii hore ay ka ahayd 1 maalin oo kaliya. Hagaag taageerada gudaha dalka oo sii daciifaysa waxay soo taraya baa la leeyahay calaamadaha muujinaya in taageerada gudaha Mareykanka ee dagaalkan ay sii yaraanayso. Heerka taageerada Trumpna ee ra'yi aruurinta ayaa hoos u dhacday, halka aqalka sanadka oo ay gacanta ku hayaan jamhuuriyiinta uu ka hor yimid madaxweynaha, isagoona u codeeyay in dagaalka la joojiyo. Inkastoo codbixintan ay ahayd mid astaan ahaan u weyn oo aan si toos ah wax badan ugu bedelaynin xaaladda dagaalka,
haddana waxaa iftiimisay kala qaybsanaanta ka dhex jirta xisbiga jamhuuriga. Sahan ay si wadajir ah u sameeyeen Reuters iyo Ipsos ayaa lagu ogaaday in 35% shacabka Mareykanka ay aaminsan yihiin in dalkoodu hadda ku jiro meel ka liidata tii uu kaga jiray Iiraan ka hor dagaalkan, halka 23% kaliya ay qabaan in Mareykanku ka xoogan yahay sidii hore. Haddaba marka sanadkan ayaa codad dhan 50 ilaa 48 ku ansixiyay qaraar uu bishan horaanteedii meelmariyay aqalka wakiiladu. Tallaabadan waxay ka turjumaysaa baa laleeyahay walaaca sii kordhaya oo xitaa ka dhex jira qaar ka mid ah jamhuuriyiinta taageersan Trump, kuwaas oo ka walacsan dagaalkan aan bulshada badankeedu taageersaneen ee bilowday 28 Febraayo. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee labada aqal ee Kongareeska ay meelmariyaan qaraar ku amraya madaxweynaha in uu ciidamada Mareykanka kala baxo colaadda militariga, iyagoo adeegsanaya awoodda uu adeegsanayo sharcigan loo yaqaano War Powers Act. Ha yeeshee weli ma cadda in codbixintan uu saameyn karto jihada dagaalka. Badmaaxinta ku xaniban Hormuz oo la samata bixinayo. Inkastoo aan weli la hubin in nabad waarta la gaari doono, haddana heshiiskan hordhac ah ee u dhexeeya Washington iyo Tehran ayaa sababay baa la yiri in dib loo furo isu socodka maraakiibta ee maranbiyoodka Hormuz. Maranbiyoodkan ayaa caadi ahaan qaada ku dhawaad 5 meelood meel tamarta dunida oo dhan. Trump ayaa Arbacadii u sheegay in wasaaradda cadaaladda ku amray inay baarto shirkadaha shidaalka sababta aysan u dhimin qiimaha shidaalka, iyadoo qiimaha saliidda ceerin uu hoos u dhacay. Wuxuuna bartiisa bulshada ku qoray, qiimaha shidaalku waa in uu si ka dhaqsi badan sida hadda muuqata hoos ugu dhaca. Qiimaha saliidda dunida ayaa Arbacadii hoos u dhacday in ka badan 1%, taas oo sii waday hoos u dhacyadii toddobaadkan, iyadoo gaadhay heerkii ugu horeeyay tan iyo ka hor bilowgii dagaalka 28 Febraayo. Haddii aan eegno qodobka xiga, Iiraan waxay sheegtay in mar kale ay adkeysay taageerada Iiraan ee xuquuqda shacabka Falastiin. Haddaba wasiirka umuuraha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa mar kale xaqiijiyay taageerada aan leexleexadka lahayn ee dalkiisa u hayo shacabka Falastiin, isagoo marka sheegay in Tehran ay sii wadi doonto garab istaagga qadiyadda Falastiin ilaa iyo laga xaqiijiyo dhammaan xuquuqdooda sharciyeysan. Wuxuuna marka sidoo kale sheegay in Iiraan ay sii wadayso in fagaarayaasha caalamiga ah ee ka dhex muujiso arrimaha la xiriira falalka Israa'iil ee ka dhanka ah shacabka Falastiin. Araghchi ayaa wadahadal dhinaca telefoonka ah la yeeshay mas'uul sare oo ka tirsan ururka Xamaas, kaas oo lagu magacaabo Basim Naim, waxayna ka wada hadleen xaaladii ugu dambeeyay ee Falastiin iyo arrimo kale oo gobolka khuseeya oo ay ku jiraan dadaalada diblomaasiyadeed ee socday iyo wada xaajoodyada ay Iiraan qaybta ay ka tahay. Intii uu socday wadahadaladu, Araghchi wuxuu carabka ku adkeeyay in taageerada qadiyadda Falastiin ay tahay siyaasad mabda ahaan u taagan oo joogto ah oo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ku dhaqanto. Wuxuuna sheegay in Iiraan ay sii wadi doonto taageerada siyaasadeed ilaa iyo shacabka Falastiin ay helaan dhammaan xuquuqdooda qaran ee sharciga ah. Haddaba wasiirka umuuraha dibadda Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in Tehran ay damacsan tahay in arrinkani ay Falastiin ka dhigto qodobo joogto ah oo ku jira kulamadeeda diblomaasiyadeed iyo xiriirada caalamiga ah ee ay la leedahay dalalka iyo hay'adaha kale. Wuxuuna intaa ku daray in Iiraan ay sii wadi doonto iftiiminta iyo cambaareynta weerarada iyo tallaabooyinka Israa'iil ku hayso shacabka Falastiin marka laga hadlayo shirarka iyo madlaha caalamiga ah. Haddaba labada dhinac ayaa sidoo kale dhaafsaday aragtiyo ku saabsan isbedeladii ugu dambeeyay ee gobolka iyo geedi socodka diblomaasiyadeed ee wada socday. Hadalka Araghchi ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii socdaan xiriiro aan toos ahayn iyo wada xaajoodyo u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka, kuwaas oo ay fududeynayaan baa la yiri dalal iyo dhinacyo gobolka ka tirsan. Araghchi markuu wuxuu xusay in xaaladda Falastiin ay weli lafdhabar u tahay xasiloonida gobolka, isagoo mar kalena ku celiyay mowqifka Iiraan ee muddada dheer ee ku salaysnaa taageerada xuquuqda shacabka Falastiiniyiin. Haddaba dhanka kale, mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sii wada digniinaha ay ka bixinayaan xaaladaha bini'aadantinimo iyo tan amni ee ka jira dhulka Falastiin ee la haysto, waxayna tilmaameen in howlgallada militariga ee socda, ballaarinta deegaanada dadka la dejinayo iyo weerarada lagu hayo bulshooyinka Falastiiniyiintu ee ku nool Gaza iyo Daanta Galbeed ay sii xumeynayaan xaaladda. Haddaba marka mas'uuliyiintan ayaa sheegay in sii socoshada rabshadaha barakicinta iyo dadka iyo xaaladaha cakiran ee amniga ay khatar ku yihiin nolosha shacabka, isla markaana ay sii adkeynayaan
rajada laga qabo in gobolka laga helo nabad waarta iyo xasilooni muddo dheer. Guud ahaan barnaamijka falanqaynta caalamka ayaan halkaas ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkana xiga. Waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaano Allah. Fadlan hanaga hilmaamin inaad like noo saarto muuqaalka, la wadaag asxaabtaada, aragtidaadana qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb. Nabadgelyo.